بسم الله الرحمن الرحيم داوديال halkan waa channelkeena Zucamada official waxaana diiradda ku saari doonaa barnaamijka qaybtiisa labaad arrimaha doorashooyinka dalka iyo shirka la madlan yahay inuu ka furmo magaalada Samareeb caasimada maamulka Galmudug madaxda dawlad goboleedyada qaar ayaa ku sii qulqulaya iyadoo madaxweynaha qarankana uu ku wajahayo saacadaha soo socda waxaan eegi doonaa xaaladaha ka jira dhul Samareeb iyo sidoo kale sida ay isugu diyaarinayaan kulankan looga arinsanayo xaaladaha masiiriga ee dalka ka jira oo ay doorashada ugu horeyso fadlan muuqaalkan laagsaar lana wadaaga saxaabtaada si aan u helno saaxiibo fara badan sida adiga oo kale waana ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan aad daawanayso markana daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka qodobadii hordhaca aad ku daawateen oo intaasi ka sii faahfaahsan waxaana ku bilaabaya waxaa loo madlan yahay in magaalada Samareeb ee caasimada maamulka Galmudug shir uu ka furmo kaasi oo u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira shirkaasi ayaa looga arinsanayaa xaaladaha dalka iyo sidoo kale arinta doorashooyinka dalka oo in koobanba ay ka harsan tahay madaxweynaha madaxweyne Farmaajo waxaana looga hadli doonaa arrimo badan oo ku saabsan sidii loo qaban lahaa doorashada madaxweynaha maamulka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa galabta garoonka diyaaradaha caasimada Galmudug ee Ugaas Nuur ku soo dhaweeyay رئيسul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble iyo wafdi uu hogaaminayay socdaalkan galabta rئيسul wasaaraha ku soo gaaray dhul Samareeb ayaa ku saabsan inuu ka qayb galo shirka madaxda dawladda federaalka iyo sidoo kale dawladaha xubnaha ka ah oo la filayo inuu berisi rasmi ah uga furmo halkaasi waxaa sidoo kale lagu wadaa in magaaladaasi uu gaaro madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa maanta magaalada dhul Samareeb caasimada maamulka Galmudug gaaray madaxda maamulada Hirshabeelle iyo sidoo kale Koonfur Galbeed waxaana beriti tagi doona madaxda Jubbaland iyo sidoo kale Puntland waxaana markaasi kulankan uu yahay kulan xasaasi ah oo si weyn markaasi looga arinsanayo hannaanka doorashooyinka dalka iyadoo lagu saleynayo heshiiskii 17 September lagu gaaray magaalada caasimada ee Muqdisho waxaana ilaa iyo hadda madaxda gaartay maamul goboleedka Galmudug kamid ah madaxweynaha maamulka Hirshabeelle dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada dhul Samareeb caasimada dowlad goboleedka Galmudug wafdiga waxaa soo dhaweeyay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor madaxweynaha ku-xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal wasiiro xildhibaano iyo maamulka caasimada madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa magaalada dhul Samareeb waxa uu uga qayb gali doonaa shirka wada tashiga madaxda dawladda iyo sidoo kale dowlad goboleedyada waxaana markaasi uu noqonayaa madaxweynihii labaad ee gaara magaalada dhul Samareeb ee caasimada maamulka Galmudug marka laga soo tago madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen magaalada dhul Samareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxaa markaasi ku sii qulqulaya madax kala duwan oo halkaasi uga qayb galaysa shirka madaxda dawladda federaalka iyo sidoo kale dowlad goboleedyada ka jira dalka madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo wafdi uu hogaaminayo ayaana ahaa kuwii ugu horeeyay gaaray magaalada dhul Samareeb waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay madaxweynaha Galmudug iyo sidoo kale xubno ka tirsan labada gole ee maamulkaas sidoo kale magaalada dhul Samareeb waxaa gaaray mas'uuliyiin hor u dhac oo ah safarka ay magaalada dhul Samareeb ku tagayaan dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale dowlad goboleedyada qaar shirka wada tashiga madaxda dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ayaa waxaa looga hadlayaa sidii looga gudbi lahaa caqabadaha hortaagan in dalka ka dhacdo doorasho loo dhayahay maadaama madaxweynaha madaxda dowladda uu gabagabeeyay ammaanka guud ee magaalada dhul Samareeb ayaa aad loo adkeeyay waxaana wadooyinka iyo goobaha muhiimka ah lagu arkayaa ciidamada dowladda iyo kuwa Galmudug oo amni xaqiijinaya shacabka Soomaaliyeed iyo sidoo kale xubnaha beesha caalamka ee taageerada siyaasadda Soomaaliya ayaa isha ku haya shirka dhul Samareeb oo ah fursadii ugu dambeysay ee lagu gaari karo heshiis lagu qabto doorasho ka dhacda dalka markaan hadaynu fiirino toddobaadkii la soo dhaafay gudihiisa madaxweyne Farmaajo ayaa saxiixay 13 senatar ee gobolka Banaadir uga mid noqonaya aqalka sare banaanbaxyo lagu taageerayo go'aanka madaxweynaha ayaa Muqdisho ka dhacay ujeedadii ugu weyn ee madaxweyne Farmaajo uu ka damacsanaya eegi doona ujeedada ugu weyn ee madaxweyne Farmaajo ka damacsanaa saxiixa 13 kursi ee gobolka Banaadir si ku meel gaar ah ugu yeelanayo aqalka sare ayaa lagu sheegay laba arin dadka siyaasadda Soomaaliya xog ogaalka oo ayaa sheegay madaxweyne Farmaajo ka damacsanaa saxiixaasi inuu beesha caalamka ka dhaadhiciyo in haddii arrinteeda oo ahayd heshiis afgarad ah lagu soo darayo heshiiska doorashada Soomaaliya kana markaasi lagu soo daro isagoo cadaadis ku saaraya maamulada Puntland iyo sidoo kale Jubbaland ayaa
gobolka Banaadir ay u noqon karto gorgortan uu gedo uga fujiyo Axmed Madoobe maadaama Jubbaland iyo Puntland ay aad markaasi uga soo horjeedaan in gobolka Banaadir uu helo matalaad sidoo kale qodobka labaad ayay indheergaradka siyaasaddu ku sheegeen in hogaamiyayaasha mucaaradka ee awiyad sida madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale Sheekh Shariif Sheekh Axmed Cabdiraxmaan Shukuur iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ay taageeraan saxiixiisa maadaama ay gobolka u dhasheen taasi oo haddii ay dhici lahayd ay ku waayi lahaayeen garab istaaga ay hadda ka helaan maamulada Puntland iyo sidoo kale Jubbaland midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya oo horey u ogaa qorshaha ayaa qoraal ay soo saareen ku yiri goluhu wuxuu arkaa in ay xaq dastuuri ah tahay in gobolka Banaadir matalaad ku yeesho aqalka sare laakiin ay nasiib darro markaasi weyn tahay in madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaadka yahay uu kuraasta aqalka sare gobolka Banaadir u adeegsado olole doorasho iyo ciyaar siyaasadeed lagu kala eedeynayo bulshada Soomaaliyeed sida muuqata madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo toddoba cisho iyo wax ka yar bay u harsantahay xeebta dalka ayaa ugu dambeyn si aan toos ahayn uga laabtay saxiixiisa kadib markii uu xalay sheegay in shirka dhuusamare keliya looga hadli doono heshiiskii 17 bishii Sebtembar ee sanadkii hore lagu gaaray Muqdisho heshiiska ayaana sidoo kale qayb ka ahayn arrinta Muqdisho wadaana daawadayaal halkaas ayaan ku soo gabagabeeyaa barnaamijyadeedka ka daawanayseen channelkeena